السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كان سو دواada mar labaad cashirkii labaad qaybta afraad koorsada hababka ilmo korinta. qaybtan waxay ku magacaaban tahay neglectful style ama uninvolved muxuu ahay dayacaada habka dayacaada ama aan shuqulka waalidka inuusan shuqulba ku yeelanin ilmaha. waa hab la diiwaan geliyey, waa hab la baaray, waa hab la ogaaday. ujeedada aan baranayna mar walba waxa waaye ilmaheena inay markina wanaag gaaraan, guul gaaraan. dee watacyaha udunun waaciya dee dhegta soo jeedaa wax barato. laakiin habkani hadduu waalidka u yahay idinkama qarinayo dee waalidnimo iyo galaas iyo waxaas shuqul kuma wala haba lano basicgii waxoogaa markino uu ka haray judgment anuuna sameyneynin. laakiin haddana waa idin sheegay cashirkii aan soo dhaafnay oo muxuu ahaa introductionka ama qeexitaanka. faktoro badan ayaa laga yaabaa inay jiraan oo ku sababayso ilmaha hasi in uu waalidka dayaco. arrintaasna waa arrin u taalo bulshada inay ka tashato, sababtoo ah muxuu ahay waxaa laga yaabaa in ay hadda waxyaabo badan jiraan cases active ah oo anaga hadda naga haystaa laga yaabaa gobolkeena Minnesota hooyooyin la dareemay haddana muxuu ahay xoogaa communitygii ama dadkii ku hareereysnaa ay saas ay ma arkino u taxdiir waayeen. marka way hoos imaanaysaa dayacitaankii. waa hadduu qofka ilmihiisa dayaco uu dilo ama si yeelo ama dhaawaco natiijada koley mujtamaca kuma farxaya. laakiin maxaa ka dambeeya mar walba in la ogaado sida aan idiin soo sheegay oo aadna u muhiimsan maadaama dee aan nahay dad muslimiin ah. waxay aad u wanaagsan inaan iswada caawino. sababtan arrintan u keenaya waxay tahay runtii arrimo xanuun badan ayaa mar walba maqlaa. waxaa jirto marka in aan idiinla wadaagay inay jiri karto waalid kibir ilmihiis u dayacaya. laakiin factorska badan ee hadda la diiwaan gelinayo waxa waaye in uu jiri karo xanuunka dhimirka ah. ma fahanteen? xanuunka dhimirka inuu jiri karo oo qoftii dee ama qofkii uu caawimaad u baahan yahay. waxaa kaloo jirto qofka inuu maandooriye isticmaali karo ama isticmaalo waalidka maandooriye isticmaalo. ciyaalkan hadda maandooriye aan dhahnaa waalidiin badan baa jira maandooriyaal isticmaalo oo qarsado, sababtoo ah communityga ayaa hadhooti ama iyano ceeb bay ku tahay ama ku ceeboobayaan. laakiin effectiga ilmihii effect garanaysaa wax walba oo ay ahaato communityga inuu korka ogaado aa loo baahanyaa. dabeecadaha marka lagu garan karo markaan kasoo baxno maxaa sababay dabeecadaasi laana mar walba islaamka hortaga ayaa aad u wanaagsan in la sameeyo. dabeecadaha waalidka waxaa kamid ah waqti inuusan la qaadaninba ilmaha. ma arkaysid ilmihii inuu la cayaarayo, ma arkaysid waalidka ilmihii inuu meel fan geynayo. haddii fan uu geeyana waxaa laga yaabaa telefoonka intuu dhegta gashto uu meesha kusii daayo. arrimahaas waxay hoos imaanaysaa habka dayacaada ama uninvolvedka waalidka aan ilmaha shuqulka ku yeelanin. arrintaasna waa arrin la ogyahay. waxaa kaloo jirto ma oga waxa ilmahooda sameynayaan, activitieskooda iyo la xiriirayaan, muxuu sameynayaan ma ogo. arrintaasna waxay soo hoos imaanaysaa dayacaada. waxaa kaloo jirto ma jirto hagitaan ama amar ay siinayaan ilmahooda. soo cunugii maba jiroba wax la siinayo oo muxuu ahay waxaan sameey ama lala wadayo. arrintaasna again waxay hoos imaanaysaa dayacaada. waxaa laga yaabaa dabeecadahan inay nagu badan yihiin. waan isla arki doonaa gabagabada insha allahu tacaala. labo muxuu ahaa habab oo ilmo korin ayaa haddaan nahay dadka mujtamaca soomaalida ee qurbaha ku nool ayaa nalagu tilmaamaa ama aan ogaano ama yaanan ogaanin. habkani wuu ka mid yahay, laakiin maxaa sababay howl ayaga dadka u taala ma aha, anagee noo taala inaan ka tashano. qaybta saddexaad cashirka saddexaad qaybta afraad ee koorsadan ugu dambeyso insha allahu tacaala waxaan kusoo qaadan doonaa alreadyna waad maqasheen in positive aysan ahayn. muxuu ahay habkan muxuu yahay habkani ilmaha muxuu ahay saameynta uu ku leeyahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.